hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay sare u kacday tirada dadka rayidka ee ku dhimanaya weerarada iyo dilalka qorshaysan ee ay geysanayaan xogaga Taliban iyo sidoo kale ciidamada dawladda oo taageero ka helaya Mareykanka iyo xulafadiisa. Warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ay sare u kacday 22% tirada dadka rayidka ee ku dhimanaya weeraradani sanadkan 2020. sidoo kale warbixintan hay'adaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dadka ugu badan ee wax ku noqonaya weeraradan ay ka mid yihiin haween iyo caruur. qaramada midoobay ayaa sheegtay in iyadoo hadda ay jiraan wada hadallo iyo sidoo kale heshiisyo hordhaca oo u dhaxeeya xogaga ku dagaalama dalka Afghanistan, haddana aysan u muuqanin in wax hoos u dhaca uu ku yimid weerarada ay ku waxyeeloobaan dadka rayidka. qaramada midoobay ayaa sheegtay intii u dhaxaysay bishii koobaad iyo bishii saddexaad ee sanadkan 2020 inay waxyeello ka soo gaadhay weeraradaasi 417 caruura, halka 152 caruura ay ku dhinteen weeraradaasi, 265 kalena ay ka soo gaadheen dhaawacyo halis ah. sidoo kale qaramada midoobay ayaa sheegtay in 168 haweena loo geystay tacadiyo ka dhana aadamaha, halka 60 kalena ay ku dhinteen weeraradaasi, 108 haweenana ay ka soo gaadheen dhaawacyo